Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaad ku soo dhawaataan saaxiibayaal dhiirigelintan waxaa idin soo jeedin doona anigoo ah Cabdi Yuusuf Cabdi. Haddaba ka bogasho wacan. Adigu waxaad tahay mid wanaagsan, qalbigaaguna waa mid saafi ah. Si kastoo ay dadka ku nacayaan oo ay u barbaarayaan xumaantaada iyo khadadkaaga, oo ay isugu dayayaan inay burburiyaan riyooyinkaaga iyo wanaagaaga, kuwaas iyaga unbaa ka hooseyn doona weligood. Sabirku waa furaha guusha degdega ah, fudaydkuna waa furaha fashilka. Guusha ma aha wax iska yimaada ama wado gaaban loo maro, waxay rabtaa shaqo adag, dadaal joogto ah iyo dulqaad badan. Goortii aad ku jirto waqti adag oo ciriiri ah, garowso in dhibaatadan aan lagugu soo dirin inay ku baabi'iso, oo lagugu soo diray inaad fikirto, inaad Alle subxaanahu wa tacaala u noqoto, inaad waxaad ku jirto ka baxdo, iyo weliba inaad sare u qaaddo iimaankaaga. Caqliga bini'aadamku waa sidii beer oo kale, fikrad walba uu qofka ku fikirayo muddo dheer waxay la mid tahay waraabinta beerta. Ugu dambeyn, qofka ma guranayo wixii fikradaha uu qalbigiisa ku beeray mooye. Fashilaadu waxay timaadaa marka aad isku daydo inaad dadka oo dhan wada raaligeliso, waayo ma jirto daawo dadka oo dhan si isku wada mid u daaweysa, iyadoo uu xanuunkoodu kala duwan yahay. Halka ayaan ku soo afmeerayaa dhiirigelintii aan idin soo jeedinayay. Fadlan haddii uu muuqaalkani ku xiiso geliyay, like saar, lana wadaag asxaabtaada. Mahadsanid.